waan idin soo fariisan doonaa insha Allah dhibaatada maanta aan kala kulmo idin kaga soo sheekeyn doona maanta dhibaatada soo gaarta aniga Ilaahay subhanahu wa ta'ala og idinkan waxa idin ka codsanaa fadlan hooyo walba oo uur leh beebiga caloosh ku jira in nolosheeda nafteeda ha u naxdo maryan fiidiyoyaasha TikTok-geeda soo dhigaysa markaa fiirisid qof yacni gudaheeda waxyaabo badan ka guuxayo waxyaabo badan inay ka hadasho u baahan nafsiyan inay oysa xataa u baahan indhaheeda ilan aa ka buuxdo indhaheeda ka dare maryan waxyaabaha ay tabanayso indhaheeda aa ka dareemaysa xanuunka ay dareemayso dhibaatada ay tabanayso ayadoo umul ah ayadoo qalan Abdulaayo su'aashaas la weydiiyay maxaa uga jawaabaysaa horta qof maanta hooyadii nacab ma jiro qof walaashii nacabna ma jiro qof gabadha xaaskiisa uu qaba nacabna ma jiro soo marka gabdhahayga boqolkiiba boqol aad baan u jecelahay micnuhuna maaha inaan hooyadood kaliya jecelahay haddaan hooyadood jecelahay gabdhahaygana waan jecelahay haddaan gabdhahayga jecelahayna hooyadood waan jecelahay because hooyadii baa aan necbanahay gabdhahaygana waan jeclaanahay ma jirto gabdhaha necbanahay hooyadan jecel السلام عليكم أهلا وسهلا أصحابتكم حرن كنالكي قبيل ساجين أوفيشيال سو دوادا isku soo noqod wanaagsan oo wacan maanta waa soo laabtay maxaa la soo laabtay wararkii ugu dambeeyay oo xamaasada iyo xiisaha iyo qiirada lahaa ee aad iyo aad social mediaha aalada TikTok aalada YouTube aalada Facebook aad loo hadalheeyo quruxda qoyska tuu oo kala faniinay odaygii Cabdulaahi ahaa oo hordhac u noqday wixii dhici lahaa 2025 odaygii Cabdulaahi ahaa quruxda qoyska tuu familkii qoyskii Cabdulaahi iyo Maryan uu kala faniinay Cabdulaahi oo sidoo isku adkeenay maadaama ay Maryan u dhalayso gabdho sidoo isku adkeenay isku dhibay isku riixay binahaaya banaanka hal mar iskeenay markii loo dhalay gabadhi shanaad daawade adduunka hadaa nooshahay wax walba waa arkaysaa Soomaali hadaa ka dhalatay wax walba waa arkaysaa wax walba waa maqlaysaa wax walba waa la kulmaysaa adduunka inta nooshahay qofka aa isleedahay shaqsiga ugu wanaagsan shaqsiga ugu ixtiraamka badan shaqsiga ugu xaq dhowrka badan waaye qofkaas aa ugu dambeyn waxa ogaanaysaa xaqiiqdiisa runta ah wuxuu yahay wajigiisa runta ah iyo waxa gudihiisa ku jira ka dhex guuxayo waa ogaanaysaa tusaale Cabdulaahi quruxda qoyska tuu ku qaado tusaale ahaan Cabdulaahi wuu isqariyay wuxuu iska dhigi jiray nin gabdhaha aad u jecel wuxuu iska dhigi jiray aabbo yacni maasha Allah ah oo gabdho jecel oo xaaskiisa jecel xaq dhowray ilan gudihiisa waxyaabo badan ka guuxay qofka bini aadanka si walba uu isku qariyo ma qarsamaayo binahaaya banaanku imaanaa yacni ugu dambeyn banaanku imaanaa sida hadda Cabdulaahi aa aragteen Cabdulaahi intan sano uu isqarinay tusaale ahaan dadka haday weydiiyaan xataa wuxuu dhihi jiray maya naag waa aas-aaska nolosha naag adduunkan dhan qofta hogaamisa naag waay naag yacni naag la-aanteeda nolol ma jirto camal ragga adduunka joogo yacni haddaysan naag jiri lahayn ma jiri lahayn camal ninka dhihi jira waa odayga dhihi jira Cabdulaahi ugu dambeyn wuxuu taagan yahay inuu naag ka cararo inuu gabar ka cararo Cabdulaahi wuxuu dhihi jiray gabar waa yacni ragga adduunka jooga dhan warshada soo saartay waaye gabar ragga xikmadda ee ragga ku hadlaayaan qofka soo saartay waaye wuu dhihi jiray wuu isqarin jiray wuu is adkeyn jiray wuu is dhibi jiray ugu dambeyn 2025 hordhac oo u noqdo wixii dhici lahaa 2025 oo hordhac u noqdo Cabdulaahi sidoo isku qarinay isku dhibay binahaaya ceebtaas uu sameeyay wuxuu dhaawacay Maryan oo gabar walaashiisa ah oo gabdhihiisa hooyadood ah xaaladda uu ugu tagay oo ugu dhaqaajiyay oo ku dayacay xaalad qof damiir leh ninka odanimo sheeganay iska daa oday xaafadeeda ahay iyo oday social media ahay iyo oday dhaqameeda ahay iyo warkiisa daa qof damiir leh oo bini aadanimada ixtiraamka xaq dhowrka iyo alla ka cabsiga ku jiro xataa kuma dhaqmaayo taasaa la dhihi karaa
cabdulaahi wuxuu maryan ku sameeyey wax aad iyo aad u fool xun u xanuun badan waay xataa wuxuu sugan waayey intay ka dhalayso intay umusha ka bixayso intay yacni xanuunka qaarkiisa qofka waxaa jira xaalad loogu dhaqaajin karo iyo xaalad lala sugan karo intuu ka gudbaayo laakiin asiga intaas buu sugan waayo asiga waxa waaye 5 luuqoo ka baxay ilaahay ceebta ha asturo ilaahay ceebta ha asturo haddaa maqashid ceeb dhan ma asturno nin soomaali kalsooni ma lahan kalgacal ma lahan wanaag ma lahan ixtiraam ma lahan xaq dhowr ma lahan alla ka cabsi ma lahan si walba aad daacad u tahay wuxuu ka faa'iideysanaya daacadnimadaada si walba oo u wanaagsan yahay wanaagiisa iyo xumaantiisa waxaa kala ogaan kartaa xaaladda hadda ee maryan ku jirto kale ayadoo umul ah ayadoo qalan ayadoo cunuga isbitaal ugu jiro maalin walba isbitaalta xataa hal maalin asigoo ag taagan yaa arkay gabadhiyoba ka carara ninka dhihi jira gabdhahay waa jeclahay hooyadood waa jeclahay nin hooyadiisna caayamaa jiro nin walaashiisna caayamaa jiro gabdhaha waa sancada soo saarta yacni warshada soo saarto ragga yacni caqliga ay leeyihiin haddee dumar jiri lahayn rag ma jiri lahayn ninkii dhahaya dhiiqadaan oo fadhiya dhiiqadaan aa aragtiin iyo ceebtaan oo fadhiya cabdulaahi oo magacii oday xaafadeeda ahay way kaa hartay meeshaasay kaaga hartay oday dhaqameeda ahay iyo oday social media ahay iyo hanugu soo dhihin ha isku keena soo dhisin horta magac oday adigoo sheeganaya ha isku keena soo dhisin intaasaa nugu filan maryan waa gabar walaasheen ah waa gabar aad iyo aad u wanaagsan qof iska afgaaban qof firfircoon qof dadka soo jiidanayso qof aan isla weyni ku jirin dadka markay aragta la sheekeysanayso waaye xanuunka iyo dhibaatada soo gaara aad iyo aad ah ugu xumahay maryan ilaahay ha u booqdhayo ilaahay gabdhaheeda hala koriyo ilaahay kuwa dhibka iyo xanuunka iyo rafaadka iyo dhaawaca ee soo martay ama ay ku jirto ku iloobi lahayd oo abaalkeeda u gudo ilaahay ha ugu dhigo maryan ilaahay ilmaheeda hala koriyo insha allah waa u duceyneynaa waa gabar walaasheen waa u duceyneynaa xanuunkeeda waa xanuunkeena kornaageed kaba isma dheero xaaladda maanta uu cabdulaahi ugu dhaqaaqayna xaalad laga aamusi karo ama loo dulqaadan karo yacni xaalad qof damiir leh oo ka aamusi karo ama oo u dulqaadan karo ma ahan horta ceebta adduunka dhan waxay raacday gabagabadeeda cabdulaahi 2024 wixii ceeb dhici lahaa wixii fadeexa dhici lahaa wixii dhib dhici lahaa cabdulaahi yaa raacday oo hordhac u noqday 2025 wiil yacni nin hooyadiisa nacaaya maa jira nin walaashiisa nacaaya maa jiro nin xaaskiisa nacaaya maa jiro gabdhaheedu waa jeclaha wuxuu dhaho oo cabdulaahi isdhibo dhiiqada adduunka ugu xumeed uu dhex ilaahu ceebta astur haddaama khashid ceeb dhan ma asturno odayga cabdulaahi ahaa odaygii quruxda qoyska tuu ahaa odayga social media ahaa balaayuu dhigay siduu isku qarinayay shartiisa siduu u qarinayo oo shaatiga oo ugu hoos qarinayay shartiisa cabdulaahi iyo ceebtiisa waxa waaye binihaaye waxaa la sheegay ama maryan ay soo bandhigtay maryan ayadoo uur leh oo dhalmadeeda soo dhow yahay inuu 5 luuq ka baxay cabdulaahi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun oo yacni maryan la qalay isbitaal gashay umul tahay cunugii yacni koomo ugu jiro oo cinaayo mushadada ku jiro uu cabdulaahi xataa cunuga soo booqanin oo u turan waayay maryan maadaama ay tahay gabdhihiisa hooyadood gabdhahaas quruxda badan u dhashay maasha allah tabaaraka allah ilaahay ha u xafido ilaahay ha u asturo oo gabdhihii yaryaraa garabkeeda istaagi waayay xilliga ee ugu baahneed xilliga ee dhibaateysneed xilligii oo loo baahnaa odaynimadii uu sheeganayay oday xaafadeednimadii uu sheeganayay cabdulaahi damiirka uu sheeganayay maanta asigay haysataa kama harto cabdulaahi kama harto gabdhihii quruxda badnaa marka 4 gabdho loo heeyay wuu isqarin jiray adi gabadha shanaad markay dhalatay 5 luuqoo ka baxay shartiisa oo shaatiga ku hoos jira banaankuu keenay cabdulaahi wuxuu hordhac u noqday wixii dhici lahaa 2025 odayaashii gabdhaha ka cararaya horta gabar wax laga carar ma ahan gabar waa quruxda guriga gabar waa ziinata beed
gabar waa lagu duceystaa lagama duceysto xadiiska laga wariyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa ninkii dhalo 5 gabdhood tarbiyeeyo diinta islaamka baro xafido guuriyo inuu jannada gelayo laakiin hadda nimanka waxa isku fikiraya aawe odayga Cabdullaahi ahaa uu isdhibaayay sidoo isku dhibaayay hal mar uu isku adkeenaayay uu goosta xariga alcamuum Maryan waa gabar walaasheen ah horta ilaahay ha u boogdayo xanuunka iyo dhibaatada ee tabanayso ilaahay qalbigeeda ha u adkeeyo Maryan waa gabar maasha Allah horta furfuran degan dabeecad leh ixtiraam leh xushmad leh soo dhaweyn leh oo maasha Allah hadii aad la kulantid aad isleedahay qoftaan intaasoo sano ka hor istaqaaneen waxa laga yaabaa daawada inay isweydiisid aad istirahdid sidee Maryan ay ku ogaatay inay furfuran tahay inay Maryan dabeecad leedahay inay qof degan macquul ah maskiin tahay sidoo ku ogaato beela saajiin Maryan maalin maalimaha kamid ah anigoo xabilaada ka imaado dukaankeeda agtiisa maraaya dukaankeeda ku leexdo waa galay maasha Allah wallahi alcadiim sida dadku ugu sheekeynay sida dadku u soo dhaweynayso yaani dadka qaar social media isticmaala caanka ka ah way is ilaaliyaan dadka lama sheekeystaan dadku way iska weyneeyaan Maryan ma ahan qof iska weyn wallahi maasha Allah marka dukaankeeda galay si qurux badan ay soo dhaweysay si degan way ila sheekeysatay maasha Allah gabar maasha Allah waa qof bini aadan inta uu wanaagsan yahay inay Maryan wanaagsan tahay ka dareemay aan ogahay Soomaalida waxay dhahdaa qofka maalinku baran weyse bil kuma baranaysid marka Maryan inay wanaagsan tahay maalintaas ogaaday hooyo masaakiin waaye waxyaabo badan ee Maryan tobanaysa Maryan fiidiyoyaasha TikTok-geeda soo dhigaysa markaa fiirisid waxa ku soo bixayso arkaysa inay tahay Maryan qof يعني gudaheeda waxyaabo badan ka guuxayo waxyaabo badan inay ka hadasho u baahan nafsiyan inay oysa xataa u baahan indhaheeda ilan ka buuxdo indhaheeda ka dareen Maryan waxyaabaha ay tabanayso indhaheeda ka dareemaysa xanuunka ay dareemayso dhibaatada ay tabanayso ayadoo umul ah ayadoo qalan ayadoo dhibaataysan isbitaalka ayadaa taagan ilmihi ayadaa u taagan dukaanka ayadaa taagan guriga ayadaa taagan wallahi ilaahay ha u dhibdhaamo Maryan waxay leedahay hadii la dhihi lahaa daacadnimada waa dambiilaha ugu weyn aniga noqon lahaa horta semberi qofka daacadda ah waa qofka semberi la dhibaateeyo qofka yani la jaraxo نفسيا قفك لا داوع واي نفسيا قفك لا xumeey waay daacadnimadu waxay leedahay dhibaatooyin aad iyo aad u badan daacadnimadu waxay leedahay bini aadanka markay arkaan inaad daacad tahay inaad isku dhiibtay kalsooni aad siisay kalgacal aad siisay ixtiraam aad siisay wanaag aad siisay way kugu qortumanayaan marka ilaahay ha u boogdayo Maryan waa hooyo Soomaaliyeed waa gabar walaasheen ah gabdho ku xiriiraan ilmo dhashay gabdhahana wax ka cararay adduunku wax gabar ka cararay waxa laga arkaas oday Soomaali midka islaada uu u fiican yahay waa nin xushmad badan waa nin afgaaban waa nin yacni dumarka xaq dhooray waa nin qiimaha gabdhaha yaqaan isleedahay ugu dambeyn sidoo isku qarinay hal mar oo banaanka imaana tusaale hada Cabdullaahi ka soo qaado hada ka hor waa la weydiiyo commentiya loo soo qoro waxa la dhahay Cabdullaahi midlan aabayaasha adduunka ugu nicib gabdhaha waa aaba Soomaali mayo yiri wuu is adkeey wuu isdhibay mayo dhahay nin hooyadiisa nicib ma jiro nin walaashiisa nicib ma jiro nin naagtiisa nicib ma jiro aniga naagtaydu waa jeclahay gabdhahaydu waa jeclahay macquul ma noqonayso xaaskayga jeclahay gabdhahayda necbahay misna gabdhahayda jeclahay hooyadooda necbahay sidoo isku dhahay Cabdullaahi isku dhibay isku riixay binihaaya waatan dhiiqada adduunka iyo ceebta adduunka uu fadhiya ilaahu ceebta astur Maryan ilaahu u booqday